habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa magaalada tirada dadka ku dhintay shil tareen oo ka dhacay koonfurta dalka Pakistan ayaa waxay gaartay 30 qof iyadoo tirada dhaawacana ay marayso 60 qof waxaana socda howlo samata bixina sida ay sheegeen saraakiisha axaddan maanta ah tareenka la yiraahdo Hazrat Express ayaa waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Karachi waxaana uu ku sii jeeday magaalada Rawalpindi markii 10 baabuur ay ka leexdeen meel u dhow saldhigga tareenada ee la yiraahdo Sarhari ee ku yaala Nawalbash sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan tareenada oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Rahmaan Lako ayaa mas'uul waxa uu ka yahay wadooyinka tareenada ee aaga shilka uu ka dhacay sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo la yiraahdo Abid Baloch oo ku sugnaa goobta uu shilkaasi tareen ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda la helay meydadka 30 qof halka in ka badan 60 qof oo kale oo ku dhaawacmayna halkaasi laga soo saaray oo qaarkood ay halis yihiin dhaawacyada soo gaaray waxa uu intaasi ku daray in laga yaabo in dhimashadu ay sii kororto iyadoo ay socdaan howlo samata bixina Baloch ayaa sheegay in haween iyo caruur ay ku jiraan dadka dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkaasi tareen martigelinta dowladda Sacuudi Arabiya ee wadahadallada ujeedadeedu ay tahay in lagu helo xal nabadeed oo lagu dhameeyo dagaalka dalka Ukraine ayaa waxa ay goobjoogayaashu leeyihiin waxa ay tilmaamayaan in ay sii xoogaysanayso sumcadda sii kordhaysa ee boqortooyada qaniga ku ah saliidda ee arrimaha caalamiga ah Sacuudi Arabiya waxa ay soo saartay 40 wadan oo kala duwan oo ay ku jiraan Mareykanka Shiinaha iyo India iyo kuwo kale oo ka socda dalalka la isku yiraahdo Global South sida ay uga wada hadlaan khilaafka ka taagan dalka Ukraine maalintii labaad ee shirka uu Sacuudiga martigelinayo ee ka socda magaalada Jeddah ayaa waxa lagu arkayaa wada hadallo laba geesooda saraakiil sare oo ka socda dalka Ukraine iyo taageerayaasheeda reer galbeedka sida Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa jooga iyo sidoo kale xubno ka socda dalalka la isku yiraahdo Global South waa markii ugu horeysay ee Shiinaha uu ka qayb galo madal noocan oo kale ah xukuumadda Beijing waxay xiriir dhow oo dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed bay la leedahay dalka Ruushka iyada oo diiday baaqyada caalamiga ah ee lagu cambaareynayo xukuumadda Moscow Ruushka ma joogin kulanka balse waxa uu isha ku hayaa wadahadallada socda dhulgariir ka dhacay bariga dalka Shiinaha ka hor waa berigii Axaddan ayaa waxa uu dumiyay guriyo waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 21 qof sida ay sheegtay warbaahinta dawladda balse lama soo sheegin wax dhimasho ah oo dhulgariirkaasi sababay dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 5.5 ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Dezhou oo qiyaastii 300 oo kiiloomitir koonfurta ka xigta magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha saacadu markay ahayd 2:33 daqiiqo ee subaxnimo ee xilliga dalka Shiinaha sida ay sheegtay xarunta saadaasha dhulgariirka ee Shiinaha sahanka juqraafiyeed ee Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirkaasi ka dhacay dalka Shiinaha waxa ay ku sheegtay 5.4 dhulgariirka ayaa waxa uu sababay in 126 guri ay dumaan waxaana ku dhaawacmay 21 qof sida uu ku waramay telefishinka dhexe ee dawladda Shiinaha iyo warbaahinada kale ee dalkaasi ka howlgala si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in dadka degay dhulkii ay dawladdu lahayd ay ka guuraan waxa uu ka hadlay kadib markii maamulka gobolka uu dhawaan baneeyay dhulkii ay hore u lahayd dawladda Talyaaniga warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Madaale oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qayladhaanta iyo cabashada ka soo yeeraysa shacabka laga saarayo qaar ka mid ah dhulalkii ay deganaayeen kuwaasoo uu sheegay in sifa sharci ah aanay markii hore halkaasi ku degin waxaan rabnaa inaan halkan ka soo gudbiyo qayladhaanta beryahan yeerayso oo aad wada maqlayseen oo qole ay ka cabanaysay Kaasa Itaaliya kicintii laga kiciyey
qole ay ka cabanayeen warshadii isbuunyada oo ku tiilay laboorka agtiisa iyo marmarkii soonahaas qole ka qaylinaysa gubadley iyo waxaar cadde iyo Soomaaliyaas ayaguna ka cabanayo inahaas ayaan rabnaa bal inaan wax isaga sheegno haddii Ilaahay yiraahdo runtii markaan ka bilaabo dawladda Soomaaliya sad la wada socotiinba waa dawlad ay dadku soo doorteen baarlamaanteeri ah oo diyaar u ah inay u khidmayso dadka dawlad waa garsoor iyo fulin marka insaan la wada soconaba waxaa jira in badan oo kamid ah dholalkii danta guud ay lahayd dawladda Soomaaliya ay lahayd ama kuwii sida gaarka ah dawladaha kale ama safaaradaha ama ay u lahaayeen in badan oo kamid ah waa la degay waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay'adahaasi dawladda in loo banneeyo meeshii ayagu ay ku shaqayn lahaayeen sidaasi la mid ah shacab Soomaaliyeed ayaa guryo ku lahay magaalada Muqdisho hantidoodii waa lagu habsaday haddii intay dacwo tageen dacwadii lagu jid helay maxkamadda ay xukuntay qaarkood dukumeenti falsa loo samaystay maxkamadda ay xukuntay la fuli tago in la yiraahdo anaga la kicinaa iyo ana layla dagaalsan yahay iyo intaasoo sanaan ku noolaa iyo aqliyad ma noqonayso duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ka warbixiyay sababaha keenay in kaasa Itaaliya laga saaro dadkii ku ganacsanayay taas oo uu sheegay inay ku timid codsi ka yimid dawladda Talyaaniga waxaan rabaa arrinta kaasa Itaaliya saan la wada soconaba kaasa Itaaliya Talyaaniga iskale aan ayuuna ku yahay safaaradda Talyaaniga warqadii ay soo dirtay waa taa warqadii wasaaradda khaarijiya ay ku soo xirtana waa taas warqadii gobolka Banaadir uu ku xirana waa ka waxay soo martay dariiqii saxda ah ay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola baneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Itaaliya la dhihi jiray in aan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhalinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xirfado sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo baneeyo markay codsadeen annaga toosna ma soo aadin wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen wasaaradda arrimaha dibadda warqadna soo qortay warqadii wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga waa kuwaasa tii aan ku xirano waa taa oo aan leenahay hal la baneeyo marka kaasa Itaaliya shakhsina ma lahayn cid gaar oo leedna ma jirin cid alle cid joogto ama deganeedna ama sharci daraha ku deganaato ama sharciga ku deganaato si ay u sheeganayaan qaarkood sharci ma ku deganayne go'aan waxa lagu gaaray in laga guuro taariikhda goormay ahada markaan warqadda qornay waxaan qornay annaga waxayna soo gaartay 23 bishii saddexaad ayayna soo gaartay 2023 annaguna waxaan warqadda ku lifaaqnay 25 bishii afaraad 2023 abriil iyo May iyo June iyo July oo hadda dhamaatay intaas ayaan sugaynay oo maalin ugu kordhinaynay taasna waxay sababtay markii dambe in go'aan la qaato sidaana looga raro dadka ayaga ahaa inkastoo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale uu sheegay in dadkii ku ganacsanayay kaasa Itaaliya ay siiyeen digniin iyo waqti ku filan oo ay halkaasi uga guuraan ayaa misana waxa arintaasi beeniyay qaar kamida dadkii halkaasi ku ganacsanayay xawageel doox oo kamida dadkaasi ayaa VOA u sheegtay inaanay jirin digniin la siiyay oo ku aadan inay kaasa Itaaliya isaga guuraan waxaanay xustay in si xooga looga saaray halkaasi hanti ay lahaydna lagu burburiyay xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho markale cawaysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa axadan maanta ah la gaaray waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay ahayd in taliska militariga dalka Niger uu dib ugu soo celiyo xukunka madaxweynihii talada laga tuuray balse urur goboleedka galbeedka Afrika oo ku hanjabay faragelin militari ayaa wajahaya baaqiyo caam ah oo la doonayo in qaab nabadeed lagu xaliyo arinta ka taagan dalka Niger warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ku soo dhawaada aqalka sanadka ee dalka ay dariska yihiin ee Nigeria ayaa sabtidii dib u riixay qorshaha ay wadaan urur goboleedka loo yaqaan ECOWAS iyagoo ku booriyay madaxweynaha dalka Nigeria oo ah gudoomiyaha ururka ee hadda in uu sahmiyo doorashooyin kale oo aan ahayn
in la adeegsado xoog. ECOWAS weli way sii socon kartaa maadaama go'aamada kama dambaysta ah ay qaataan is-afgarad ay yeeshaan waddamada xubnaha ka ah, laakiin digniinta ka soo baxday habeenkii Axadda ee kama dambaysta ah ayaa waxay dhalisay su'aal ku saabsan masiirka faragelinta. Algeria iyo Chad oo ah dalalka aan ECOWAS ka tirsanayn ee dariska la ah oo ciidamo xoog badanna ku leh gobolka ayaa labadaba waxa ay sheegeen inay ka soo horjeedaan in xoog loo adeegsado ama aysan faragelin military ku samayn doonin. Mali iyo Burkina Faso ee dariska la ah oo labaduba ay maamulaan ciidamada junta waxa ay sheegeen in faragelintu ay noqon doonto sida hadalka loo dhigay ku dhawaaqidda dagaal iyaga ka dhana. Sidoo kale afgembiga ayaa noqon kara kii ugu dhibka badnaa ilaa hadda ee gobolka galbeedka Afrika ee la halgamaya la wareegidda militariga, xagjiriinta islaamka iyo wareegidda dowladaha qaar ee xagga dalka Ruushka iyo kooxda calooshad u shaqaystayaasha ah ee Wagner. Madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Niger Mohamed Bazoum ayaa sheegay in sidoo hadalka u dhigay uu la haysta u yahay askar qallafsan. Wafdi ka socday urur goboleedka ECOWAS ayaa awoodi waayay in ay la kulmaan hogaamiyaha junta Generaal Cabdiraxmaan Tajiyani, kaas oo falanqeeyayaasha ay sheegeen in uu horseeday inqilaabka si looga fogaado in xilka laga qaado. Hadda ciidamada militariga ayaa la xiriiray Wagner si ay u caawiyaan iyada oo ay xiriirka xagga amnigana u jarayaan gumaystihii hore ee Faransiiska. Saacado ka hor inta aan la gaarin maalinta Axadda ee loo qabtay militariga in ay xilka dib ugu celiyaan madaxweynihii talada laga tuuray ayaa boqolaal dhalinyaro ah waxa ay ku biireen ciidamada ammaanka ee waddooyinka mugdiga ah ee caasimadda dalka Niger ee Niamey si ay u ilaashadaan waddooyinka badan ilaa iyo subaxii, iyaga oo hubinaya baabuurta in ay hubsitaan una hoggaansamaya baaqa militariga ee ah inay ka feejignaadaan faragelinta shisheeye iyo basaasiinta. Waxaan halkan u imid in aan taageero ciidamada, waanan ka soo horjeedaa ururka gobolka. Waan dagaalami doonaa ilaa dhammaadka. Ma ogolin waxa Faransiisku nagu hayo. Waa naga dhammaaday gumaysi, ayuu yidhi Ibrahim Nudiro oo ka mid ah dadka deegaanka ee roondada ku jira. Baabuur meesha maraysay ayaa qaarkood waxa ay yeerinayeen hoonka taageero darteed. Dadka qaar ayaa waxa ay ku baaqeen in loo midoobo waddamada Afrika. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa xiga ee urur goboleedka ECOWAS. Ururka gobolku ma ahayn inay siiyaan ciidamada junta hal toddobaad oo kama dambaysa si ay dib ugu soo celiyaan xilka madaxweyne Bazoum, laakiin waxay ahayd in ay u qabtaan ilaa iyo 48 saacadood, ayuu yidhi Peter Fama, ergeygii gaarka ahaa ee hore ee Maraykanka ee gobolka galbeedka Afrika ee Saaxil. Afgembigan ayaa dhabarjab weyn ku ah Maraykanka iyo xulafadiisa oo u arkayay dalka Niger inuu yahay dalkii ugu dambeeyey ee sida weyn uga qayb qaata la dagaalanka argagixisada gobolka Saaxil oo ah deegaan aad u ballaaran oo koonfurta saxaraha ka xiga, halkaas oo jihaadiyiinta xiriir kala leh Al-Qaacida iyo kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ay ku ballaariyeen dhulkooda, kaas oo bilaabay in uu halis geliyo dowladaha xeebaha sida Benin, Ghana iyo Togo. Maraykanka, Faransiiska iyo dalalka Yurub ayaa boqolaal milyan oo dollar oo gargaar militari ah ku qarqiyey dalka Niger. Faransiiska ayaa waxaa dalkaasi ka jooga 1,500 oo askari, inkasta oo masiirkooda hadda su'aal la geliyey. Maraykanka ayaa sidoo kale 1,100 askari ku leh dalka Niger, halkaas oo ay ka howlgalaan saldhig muhiima oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee magaalada Agadez. Iyada oo hogaamiyayaasha afgembiga ee dalka Niger ay sheegteen in ay tallaabada ay qaadeen ay uga dan lahaayeen amni darrada sii kordhaysa awgeed, ayaa shilalka iska hor imaadyada waxa ay hoos u dhaceen ku dhowaad 40% dalka marka loo eego 6 bilood ee lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay mashruuca xogta goobta iyo xogaha dhacdooyinka hubaysan. Taasina waxa ay ka duwan tahay weerarada sii kordhaya ee dalka Mali oo laga saaray ciidamada Faransiiska lana shaqeeya Wagner iyo Burkina Faso oo iyaduna ka takhallustay ciidamada Faransiiska. Hubantila'aanta ka jirta dalka Niger ayaa nolol maalmeedka uga sii daraysa ilaa iyo 25 milyan oo qof oo ku nool mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka. Qiimaha cunnada ayaa sare u kacaya kadib markii urur goboleedka ECOWAS ay ku soo rogeen cunuqabatayn dhaqaale iyo mid socdaalba afgembiga kadib. Nigeria oo siisa
ilaa iyo 90% korontada dalka Niger ayaa waxa ay jartay qayb ka mid ah korontada. Kooxaha bini'aadminimada ee dalka Niger ayaa ka digay sida hadalka u dhigeen saameynta xun ee nolosha ee in ka badan 4.4 milyan oo qof oo u baahan gargaar. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. markale cawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug xilli ay dowladdu sheegtay in la sii amba qaadayo howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo la sheegay in madaxweynuhu uu fariisin ka dhigan doono inta uu socdo dagaal lagu wado in ururka Al-Shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. haddaba tigitaanka madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee la filayo inuu dhowaan halkaasi ka bilowdo? waa kan Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Xasan waxa waaye madaxweynaha tagitaanka meesha uu tagay iyo abaabulkan dagaal ee socdo oo damaca uu yahay in Galhareeri iyo ceelbuur lagu qabto waxa waaye waa meesha isku aruursadeen shabaabka oo cadowga aad u degan yahay. laakiinse waxa isweydiin mudan ciidanka intaas cududdiisa ay la eg tahay diyaaradahana ay ay galbinayaan la socdaan oo maaragtay maleeshiyaadkii ciidamadii oo macawisleyda iyo ciidankii kaleeto oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishtii haddii ay ku dhaqaaqaan waxa waaye waa si sahal ah ayaa ceelbuur lagu gaari karaa. dhowr jeer in la qabtay ayaa laga soo baxay. marka waxa waaye waa dhiirigelin madaxweynaha sababtoo u taga meeshaas inuu ku dhiirigeliyo oo dhab ay ka tahay madaxweynaha in iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan cadowgan daashaday oo dilaaga in meel la saaro oo laga saaro dalka laga saaro. waa dhibaato badan ay 15 sano ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed. Korneel Macow ayaa dhinaca kala sheegay in Al-Shabaab sida looga bartay aanay dagaal toos ah la geli doonin ciidamada dawladda isla markaana ay banayn doonaan deegaanada ay iminka ku sugan yihiin balse goobahaasi marka ay ciidamadu gacanta ku dhigaan kadib ay macquul tahay in weeraro rogaal celisa ay ku soo qaadaan. waxa waaye shabaab dhaqankaas waa lagu yaqaanaa inay meesha ka baxaan kadibna ciidanka markii uu muddo uu joogo meesha ay dagaal ay ku soo qaadaan. waxaana ugu wacan wardoonka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu meesha ka howlgalo niisana waa inay ka howlgasho isla markaas dhaxgal lagu sameeyo penetration lagu sameeyo dadweynaha meesha degan. kolleyba waxa waa shacabka meesha degan dhibaatay ku hayeen. shacab wuxuu ahaa wadanka go'doonka ah oo dhibaato badan ay ku hayeen. shacabkana lagu dhiirigeliyo waxa waaye dawladdiini ayaa idin timid maamulka iyo iyo dawladnimada degaankana waxa waaye idinka ayaa mas'uuliyadda qaadanaya. sababtoo ah waxa waaye gudoomiye ayay lahayd ceelbuur maamulka in loo sameeyo isla markaas saldhiggii booliiskana meesha ay ka howlgalaan stationkii la furo dadka gargaar loo geeyo. dadka waa dad dhibaataysan meesha haddii dagaal uu ka bilaabana dadaa qahayo oo la qahaaya shabaabka amaba way ka saarayaan magaalada qaar basaasiinna way uga tagaanaan waa hubaal. marka waxa waa dhiifoonaantana in la xoojiyo isla markaasna lala xisaabtamo sarkaalka meesha madaxda ka ah ama guutooyinkaasi hogaaminayo mas-uuliyadda inuu qaato oo heeganka uu ahaado 24 saac iyo sahanka. marka waa laga yaabaa in ay xasisho ceelbuur iyo Galhareeri. siyaasiyiinta soo dhaweeyay in madaxweynuhu uu xarun ku meel gaara ka dhigto magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa kamid ah Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug. tigitaanka madaxweynaha ee uu tegay Galmudug caasimada Dhuusamareeb iyo go'aanka dagaalka in la soo afjaro dhinacaas Galmudug iyo Hirshabeelle oo deegaanadaas oo dhan laga soo saaro khawaarijta
waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa tilaabo aad muhiim u ah, waa tilaabo qof kasta oo wax garanaya ama damiirlig uu soo dhaweynayo. aad iyo aad ayayna u tahay yacni fursad aad muhiim u ah. waa madaxweynihii koowaad oo dalkan inuu khawaarijta ka sifeeyo si go'aana oo muuqata u qaatay, tilaabooyin ku habboonna qaatay. waa mahad celinaynaa madaxweynaha, waana ku taageeraynaa, waana ku garab taaganahay. la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha galmudug axmed shire falagle oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa si kooban VOA uga waramay qaabka uu u socdo diyaargarowga gulufka ka dhanka ururka al-shabaab. diyaargarowga aan ugu jirno in shabaab laga xoreeyo deegaanada ay ka haystaan galmudug iyo hirshabeelle waa mid xoogan, loobana kala harin. hadday noqon lahayd dowladda galmudug iyo shacbigeeda iyo ciidamadeeda, hadday noqon lahayd dowladda federaalka ah. sidaa la socotid shalay tole waxaa yimid magaalada dhuusamareeb wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda, oo ciidamana waa ka soo horreeyeen, ciidamadana waa ka dambayn doonaan. gulufka colaadeed ee la rabo in arrintaasi wax looga qabtana waa mid xoogan. waxaa la rajaynayana waxa weye inaan waqti badanna ku lumin, si lana yareeyo in dad kale wax gaaraan. dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug labadana waa ka go-an tahay in casdabay la qaada laga dhigo. rajada laga leeyana waxa weeye in kooban in lagu soo afjaro nabaddiidku deegaanada ay ka joogaan galmudug. waana muuqataa cududii iyo midnimadii iyo kartidii looga hortegi lahaa. howlahaasina waa howlo faraha lagu hayo. aan rajaynayna maalmaha soo socda in shacbiga soomaaliyeed meel oo joogaanba ay ku naaloodaan. deegaano ka tirsan hirshabeelle oo ay weli baaqi ku yihiin al-shabaab ayaa ka mid ah meelaha lagu wado in ciidamadu ay wajahaan, waxaase quburada amnigu ay ku talinayaan in marka hore la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya maamulka hirshabeelle, sida uu tilmaamayo axmed cabdulaahi kaboole oo siyaasadda iyo amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee dalka sweden. sidaad la socoto wejigii koowaad ee dagaalku wuxuu ka bilowday hiiraan, waxaana hormuud u ahaa runtii guddoomiyihii hore gobolka hiiraan mudane cali jayte, oo kabacdina taageero ka helayay dowladda federaalka soomaaliya. halkaasoo militariga aada mooday in ay aad iyo aad runtii ilaa dagaalkiina hadda socdo oo al-shabaab looga guuleystay meelo badan oo ilaa 15 sano 17 sano ay haysteen. nasiib darro khilaafka ka jira hirshabeelle mar kastaba saameyn ayuu ku yeelanayaa dadkii deegaanka iyo howlgalladii uu ku yeelanayaa. marka waqti hadda la joogo waxay la tahay maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tuutihii qaatay oo u fariistay dhuusamareeb in wejiga labaad la dagaalanka al-shabaab laga soo gabagabeeyo galmudug iyo hirshabeelle, in khilaafka la yareeyo. wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ku shuqulana ay ka shaqeeyaan sidii loo yaray lahay khilaafaadka ka jira hirshabeelle, si aan loo niyad jebin howlgallada militariga soomaaliya ay sameynaya oo runtii ah howlgalkii ugu weynaay oo ay soomaaliya la gasho al-shabaab. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho. aad baad umahadsan tahay xasan kaafi qoyste. weli dhegeystayaal waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari. kulanti wanaagsan dhegaystayaal. 1dii bishan agoost ee sanadkan 2023 dowlad goboleedka puntland ayaa u dabaaldegay sanad guuradii 25aad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay oo ku beegnayd 1dii bishii agoost ee sanadkii 1998. muddadaasi rubuc qarniga ah puntland waxaa soo maamulay 6 madaxweyne oo uu ugu horreeyay allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed, uguna dambeeyo madaxweynaha hadda talada haya siciid cabdulaahi deni. haddaba sidee ayuu ku bilowday maamulka puntland? maxay ahaayeen caqabadihii ka hor yimid? xaggeese hadda taagan yahay? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah caasho geella diiriye oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka ka ciyaaray aas-aaskii puntland, xelal kala duwanna ka soo qabtay. caasho hadda waxa ay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka ah. aad ayaad u mahadsan tahay caasho geelle. kusoo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a. mahadsanid nuuro. bal marka hore noo faahfaahi inta aad kala socotay sidii ay kusoo bilaabatay puntland.
bismillahi raxmaan raxiim VOA iyo dadka Soomaaliyeed oo la dhageysanaya baa salaamaya walaal waxa weeyaan markii dagaalkii sokeeye dhacay 91dii dad badan oo muxuu ahaayay ka soo jeeday gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya waxa ay gaareen goboladaasna waxay ahayd goobo waagi hore la oran jiray Gaariwa waxay ka samaysteen muxuu ahaay dadaalo iyo horumarin iyo maamulo yaryar oo muxuu ahaay u adeega danahooda markii hore amni aad ahaayeen haddana waxa weeyaan amnigii ayaa la sii horumariyay waxaa shaqaysay dekadii Boosaaso oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed ama ganacsato ah ama ahaa dad muxuu ahaayay dagaalada ka soo barakaceen oo ku liibaaneen waxaa dheeraatay oo daba dheeraatay xilligii dawlad Soomaaliyeed inay dhisanto ay ahayd oo 8 sano ka soo wareegtay waxaa rajabeel laga gaaray shirarkii lagu yegleelay dawlad Soomaaliyeed oo ka dhici jiray wadamada dariska ah shirkii ugu dambeeyay oo Qaahiro ka dhacay ayaa xilligaas fashilmay kadibna dadka reer Puntland muxuu ahaayay waxgaradkoodii waa isku yimaadeen waxayna goosteen in ay muxuu ahaa loo baahan yahay in la sameeyo maamul muxuu ahaa Soomaalina baadi doona iyo dawlad Soomaaliyeed reer Puntland muxuu ururiya muxuu ahaayay horumarkeeda iyo dawladnimadeedana muxuu ahaayay adkeeya sidaas ayay markaa goosteen kadibna waxaa jirtay jabhado kale oo jabhadaha Soomaaliyeed kamid ahaa oo la oran jiray USB muxuu ahaayay SNDU jabhadahaasuna waxay goosteen iyaguna oo ahaa dadkii deegaanka iyaguna ka dhawaa oo muxuu ahaa ood wadaaga la ahaa in ayaguna muxuu ahaa ka mid noqdaan dadka maamulkaas wax ka dhisanaya waxaa loo saaray ergooyin shirar badan oo kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay sameeyeen ayaa la sameeyay waxaana la gooyay in maamulkan maanta la yiraahdo Puntland oo sameysmo oo rubac qarni jirsaday alxamdulillah loona dabaaldegay 1 Agost 2023 waayahay marka caqabadihii ugu horeeyay ka hor yimid aasaaskii maamulka maxaa ka mid ahaa wala horta caqabadihii ka hor yimid oo iska badnaayeen horta caqabadaha siyaasi oo sida kuwa maanta jira oo Soomaaliya markasta oo la damcay wax la dhisto ka hor yimaada ma jirinin dadku hal tareen bay saarnaayeen dhammaan waxay wada rabeen muxuu ahaayay in maamul la dhisto muxuu ahaa dhaqaale lama fiirinin oo wixii la haystay ayaa muxuu ahaa la isticmaalayay oo arrimo dhaqaalena problem kama jirinin waxa kaliya oo problemku ka jiray waxay ahayd wadanka intiisii kale oo dagaal ka socdeen oo aan maamul ka jirinin oo maamul hal meel kaliya ka shaqeeya uusan muxuu ahaayay taabagal noqonaynin waxaa jira xilligaas hadii muxuu ahaa maamulka Puntland wax yar ka dhacaan qof uu wax sameeyo 5 daqiiqo ka bacdi meesha deegaanka ugu sokaysa haduu galo muxuu ahaa aan cidna soo qabanaynin marka walwalkaas jira caqabadaas jirtay laakiin alxamdulillah waxaa jirta caqabad isku duubni badan oo fududeysay in macnaha 5 gobol oo markaas muxuu ahaa Puntland ka koobnayd iyo deegaan la yiraahdo Buuhoodle oo markaa isku yimid inay caqabad la'aan dhisaan waa jiray isjiid ku saabsan xagga awood qaybsiga tirada oo yarayd dadka oo tiro badnaa muxuu ahaayay markii dambana wixii lagu saleeyay waxay ahayd isku jiid iyo muxuu ahaayay charterkii markaas la sameeyo 3 sano sheegayay in 3 sano ka bacdi loo gudbi doono dimuqraadiyad oo dadka muxuu ahaayay laga tagay ama aan matalaad helin ay matalaad heli doonaan sidaasaana waxaa lagu dhisay kalsooni iyo rabitaan iyo muxuu ahaayay cun iyo aan ku cuno dad badan waxaa jira xubno lahaayeen oo dad kale siiyay qaar wax laga qaaday qaar xoogaa muxuu ahaayay dareemay in xoogaa wax ku yar yihiin oo loogu daray ma jirinin balance ma jirinin la dhihi karo xaq baa wax lagu qaybshay waxay ahayd un muujeeda xalkaas in muxuu ahaa maamulka la dhiso 3 sano ka bacdina ay dhasho dimuqraadiyadaas oo qof kasta oo matalaadiisa helo waaya marka adigu waxa kamid ahayd dadkii dhanka haweenka hormuudka ka ahaa xog ogaalkan ahaa marka door intee la eg ayaa haweenkiinan Puntland ka ciyaarteen dawlad dhiska maamul goboleedka walaalo horta aan waxaan kamid ahaa ergadii markii ugu horeysay gobolka Mudug ka tagtay kadibna waxaan kamid noqday 15 muxuu ahaa xubnood oo la dhigi jiray guddiga muxuu ahaa guddiga sare muxuu ahaayay guddoonka ahaa oo shirka maamulayay oo muxuu ahaa la doortay
kadibna muxuu ahaayey waxaan ka mid noqday xildhibaanadii gobolada markay soo dooranayeen gobolka mudug ka soo baxay waxaan rabaa inaan caddeeyo haweenku waxay ahaayeen lafdhabar hoolka shirka lagu dhigayo konton iyo afraad la oran jiray waxay meel qoraxa oo aan lahayn har fiican lahayn xero askareed ah magaalada aada uga fog dadka markii ay ka baxaan mararka qaarkood habeenimo ay ka bixi jireen marka dadkii deegaanka deganaa garoowe baa oo haweenku u badnaayeen ayaa waxay martigeliyeen dhammaan dadkii shirkaas ku jiray hadday ahaan lahayn waxay cuni lahaayeen hadday ahaan lahayn meeshay degi lahaayeen ha lagu qora xataa oo wixii dowladdu ay bixin kadhay markii ay dhalatay ha bixiso laakiin dadkii aan hadal ka keenin guriyeyntii iyo muxuu ahaay cuntadii iyo soo dhoweyntii sidoo kaleeto habka khilaafaadka ayay qayb ka qaadan jireen oo mararka qaarkood haddii shirka hakad yaryar galo waxaa jiray dumar abwaana iyo rag abwaana intaba oo muxuu ahaayey suugaan ku cabiri jiray in muxuuna hawsha la fududeeyo waxaa jiray dumar sidoo kale qayb ka qaatay shirka inta lagu jiro muxuu ahaayey isimada iyo dadkii waaweynaa oo dhan xataa u dhisay hangaro aqal Soomaaliya oo muxuu ahaay ay ku soo dhaweeyaan oo fariistaan oo ku nastaan waxay ahaayeen guubaabiyayaal banaanka taagan ayagoon shirka xubno badan uga jirinin oo gobolada xubno kooban ay ku soo dareen haddana dumar badan oo waxaa jiray banaanka taagna oo ka sacbinayay oo dhiiri gelinayay oo markay xataa xabaar maqlaan ama iyadoo la dahay ama la aamusay halkaas albaabka soo garaaci jiro dhihi jiray see wax u socdaan marka waxaan dhihi karaa 100% waxay ahaayeen haweenku dadkii qaybta libaax ka qaatay dhismihii Puntland waa tahay marka hadda 25 sano ayaa ka soo wareegatay waa qarni waa sanado badan marka dhinac laga fiiriyo marka xagee ay hadda taagan tahay Puntland walaalo horta ruuc qarni waad garanaysaa wax badan runtii muxuu ahaay Soomaali baa leeyahay maamul hore looma aqoonin يعني muxuu ahaay maamul goboleedyada maxay federaaleyntu wadanka waa ku cusub yihiin Puntland waxay meesha ugu horeysay oo maamul sameysanta oo qayb ka qaadatay maamulka dawladda federaalka inuu sameysmo marka iska gaabisana waa jiraan oo badan oo sababay in muxuu ahaayay hore loo socon waayo intii la filayay horumar badan oo la taaban karana waa jiraan oo maanta marka Puntland tigtidiya maalintii la asaasay wax badan baa u dhaxeeyay marka aragtay aeroboor la sameeyo caalami ah habeen iyo maalinba laga soo dego markaad aragtid dekadaha la sameeyay markaad aragtid laamiyada markaad aragtid dadka Soomaalida ah oo muxuu ahaayay shacabka oo sida u maalgashadeen magaalooyinka oo dhan sida yani dadku ay aad ugu dhiiran yihiin haddana waxa weeyaan gaabisyo badan baa jira waxa kamid ahaa 3 sano ka bacdi baa rabin doorasho la qabto lama qaban dhowr 20 sano ay soo gaartay muxuu ahaay waxa lagu jiray qor isku dhiibkaas in 5 sano mar muxuu ahaa madaxweyne cusub qabto oo runtii alxamdulillah intii lagu soo mooday ah waa iska jireen muxuu ahaay xukunka dee kursigu ma aha wax la isku muxuu ahaay cafiye iyo wax maarta la isku infayd gareeyo ma aha waa iska jireen waxyaabo badan oo caqabadaha mararka qaarkood muxuu ahaay iska horimaadyo dhacay oo iyaga laftirkooda dib u dhac keenay laakiin alxamdulillah waxaan dhihi karnaa 25 sano horumar badanna waa la gaaray wax badan oo la filayo gaabis oo dimuqraadiyadan hadda bilaabatay ay kamid tahayna waa jirtaa waxa kale oo caqabada iyaduna ahayd oo dhiba muxuu ahaa jirana waxay ahayd yani haynta iyo awoodaha inta qaybsigooda iyo dadka muxuu ahaa baahidooda oo kala badan maadaama aysan dhaqaaluhu muxuu ahayn sidii loogu talagalay maadaama aysan jirin dawlado waaweyn oo muxuu ahaa dhaqaalaha bixinaya aysan jirin maadaama muxuu ahaay dagaalo sokeeya xataa ay jireen mararkii muxuu ahaa Puntland intaysan bilaaban ku dhawaadkoodii ay jiraan kuwa hadda muxuu ahaay meelaha buuraha iyo ka socsocda waxyaabahaas oo dhan ayaga laftirkooda dhaqaalaha hoos bay u dhigeen waxay kamid yihiin caqabadaha yani waxyaabihii la filayay loo gaari waayey dawladda federaalka iyo Puntland iyada laftirkeeda mararka qaarkood aan muxuu ahaayay xiriir wanaagsan ka dhaxaynin iyada laftirkeedu waa caqabad kamid ah waxyaabaha horumar badan xogaa gaabis ka dhigay laakiin alxamdulillah waxaan dhihi karnaa soo far 25 sano waa u qalantaa Puntland muuqaal ahaan marka la fiirshay amni ahaan alxamdulillah waa tahay waxaa soo hadal qaaday dimuqraadiyiinta waxaan ognahay in Puntland ay ku guuleysatay in dhowr iyo 20 degmo loo sameeyo golo deegaan arintaasi maxay kaga dhigan tahay horumarka dowladnimada ee Puntland maxayna gobolada kale ee Soomaaliya kaga dayin karaan walaalo horta waxaan dhihi lahaa waxa weeye horta runtii wax weyn bay nooga dhigan tahay annaga reer Puntland maxaa yeelay waxaan soo aragnay dhowr iyo 20 sano oo qabiil la isku xukumayay
qabiilku waad garan kartaa qabiilku ma soo hormariyo qofka muxuu ahaayey waxtarka weyn leh qofka aqoonta iyo muxuu ahaa waay aragnimo ula shaqadaas la gelayo badanaaba waxa qabiilku soo hormariyaa waxa weeye qofka iyagu ay markaas wax la raadinayaan taas marka waxay ragaadisay horumar badan oo la filayay iyo isbedelo badan oo la rabay in la sameeyo marka in dimuqraadiyadda la sameeyo oo qofka codkiisa uu ku nasiibsado wax weyn bay ahayd iyada laftirkeedu barashay u baahan tahay waxa weeyaa dadku ma wada soo wada bixin oo waxa weeyaa maba aaminsaneen dimuqraadiyadda aad umaysan aqoonin boqolkiiba muxuu ahaayey 40 dad aan dhamayn ayaa maxana isdiiwaan geliyay dad badan oo muxuu ahaayey dhalinyarada xataa waxaa jira oo tiro badan oo yacni boqolkiiba 30 ka badan oo dibadaha qalbiga ay uga jirto oo laga dhaadhiciyay macnaha faraha dimuqraadiyadda haddii aad geshid hadhowta dhoofkaaga bay wax u dhimaysaa waan dimuqraadiyadda gelin baa jira macnaha isdiiwaan gelintii marka turn out-ku waa yaraa laakiin inta muxuu niyad wanaag baa jiray 33 degmo lagu guuleystay 3 degmo oo hartay waxay ahayd degmooyin xoogaa khilaaf yar oo adiga soo kala dhaxgalay ku baaqday laakiin dadweynuhu ay rabitaankooda muxuu aad u rabeen haddana ay diyaar tahay in muxuu ahaay la dhameystiro goboladan hadda iyaguna SSC oo Puntland iyaguna ka tirsanaa oo dagaal iyo halgan ku jiray ayaan degmooyinkoodii laga qaban sababtuna waxa weeye maadaama dadku inay ku jireen in muxuu la daba goosto oo degmooyinkoodii ayagoo halgan iyo hawl ku jirana dib baa loo dhigay oo lama qaban ilaa inta go'aan laga gaarayo marka alxamdulillah يعني waxbay dhaamaan 400,000 500,000 oo qof oo cod bixiyayaal ah inay wax doortaan waxay ka fiican yihiin dad 100 ka yar oo muxuu ahaay odayaal inay wax soo xulaan marka horumar weyn oo la taaban karo oo runtii lagu muxuu ahaayay lagu muxuu ahaayay diilo fiican la weeye laakiin mar walba khilaaf waa iska jira sababtoo ah waxa weeyaan dad badan oo markii hore waxa jiray dimuqraadiyadda gelin oo aan muxuu ahaay laakiin markay hirgashay daaqaday ka soo galaan iyo albaabay ka soo galaan aan helinin oo laftirkooda muxuu ahaayay jeclaan lahaa inay muxuu dib loogu celiyo oo wax dib u noqdaan laakiin alxamdulillah aniga sida aan is leeyahay dadka boqolkiiba 99 waxay aad ugu faraxsan yihiin in dimuqraadiyaddu hirgasho Soomaaliyana ay ku fido casharna u noqoto muxuu ahaayay dadkuna is doorto waa mahadsantahay iigu jir khadka maama caasho geelle dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo anigoo yahay magacaygu maxamed cabdulmaan axmed oo ku nool magaalada boosaaso waxaan weydiinayaa puntland 25 sano jidhaa iyadoo aynan joogin ciidamo shisheeye amnigeeduna isku filan yahay waxaan weydiinayaa dhinaca dhaqaalaha iyo wax walba ma isku filan tahay puntland 25 sano ay jidhay alxamdulillah horta waxa waaye waxaan ku soo moodnay waxa waaye nabad baan ku soo moodnay muxuu ahaayay isku tashi baan ku soo moodnay xilliye waxaa jira Puntland qaybo kamid ah dagaal ka socdeen oo dadka wada degan oo ay mar walba dagaal ka socday sida Galmudug iyo Puntland oo kale dagaaladaas waa joogsadeen waa la xaliyay muddo 2 sano waxa weeyaan horumar iyo nabad iyo isdhexgal iyo muxuu ahaay baa lagu wada jiraa taas waxa weeyaan waxyaabaha qaybaha amniga Puntland dhexdeedana waxa weeyaan iyada laftirkeedu dhibaatooyinka kaga jira duulimaadyada uga yimaada muxuu ahaayay ciidamada muxuu ahaayay soo duula oo buuraha jooga mooyaane waxa weeyaan gudaheeda waxa ka dhaca waa wax maartay rabitaanka dadka iyo muxuu ahaayay fikir kala duwanaansho iyo ku saabsan laakiin anigu waxaan isleeyahay Puntland maadaama xilliyo ka adag oo ka dhaqaale yar tahay oo ka horumar yarayd ay amnigeeda sugtay haddana maanta waxaan is leeyahay way sugan kartaa iyadoon ciidamo shisheeye joogin waa tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo haddii aan ku bilaabo magacayga waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlayo magaalada colombos ee gobolka ohio dalka maraykanka waxaan salaamaa martida barnaamijka caasho geelle daadiyaha barnaamijka nuur buqaari dhammaan bahda VOA-da iyo dhegeystayaasha meel bay joogaan haddii aan u gudagalo su-aashaydo caasho geelle waxaa tahay qof xogogaal ah wax badan ku soo jiray siyaasadda Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya hadda waxaan ognahay inuu jiro khilaaf Puntland iyo dawladda federaalka ah marka muxuu yahay doorka haweenka ee xasilinta khilaafkaas waa mahadsantahay waa mahadsan yahay dhegeystuhu walaal horta doorkan waxa waaye waxa isku hayaan dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxa weeyaan muxuu arrimo siyaasadeed bay isku hayaan
arrimo awood qaybsi bay isku hayaan sida dastuurka oo kaleeto waxaa jira muxuu ahaay khayraadka sida loo qaybsanayo oo ahayd in laga wada tashado marka maadaama ay u badan yihiin arrimo siyaasi ah horta waxa weeyaan roolka haweenku aad buu u yaryahay haweenku mar walba waxay jecel yihiin nabad waxay jecel yihiin in la heshiiyo waxay jecel yihiin arrimuhu sahlanaadaan siyaasiyiintan haweenku waa ka mid muxuu in wax walba la fududeeyana waanu jecelnahay marka waxa waaye mar walba Puntland dhowr jeerna way cadaysay inay diyaar u tahay in la xaliyo arrimaha muxuu ahaay dowladda federaalka iyo dowladda Puntland maxaa yeelay waa dad Soomaaliyeed waa dowladdeedii weeye Puntland waa hooyadii muxuu ahaay dowlad Soomaaliyeed samaysay iyadana ixtiraam bay mudan tahay in muxuu ahaa lagu ixtiraamo mas'uuliyadaheeda iyo muxuu ahaayay waajibaadka iyo xuquuqaadkeeda asaasiga ah ay leedahayna waa loo baahan yahay waxaan is leeyahay arrintaas muxuu ahaayay hadda waxaa lagu kala jiraa muxuu ahaay dowladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay halgan muxuu ahaay dagaal Puntlandna waxay ku mashquulsan tahay arrimihii muxuu ahaa doorashooyinka marka waxaan is leeyahay marka arrimahaas ay dhinac u dhacaan waa khasab in dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliyeed maadaama aysan isfuraynin ay wada fariistaan dhameeyaan arrimaha iyo khilaafaadka siyaasiga ah anaguna qayb baan ka qaadanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan haween iyo rag iyo aqoon-yahan maxaa yeelay wax hadda la isku haysto aan ahayn in la wada fariisto oo waxyaabaha la isku hayo la xaliyo ma jiraan insha Allah waxaan rajeynayaa inay si ugu dhaqsaha badan iyaduna dhamaan doonto waa hagaag dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay dhanka dhageystayaasha su-aalihii ina soo weydiiyeen inaan wada dhegeysano magacaygu waa mawliid mascade dhabarey oo jooga degmada goldogob aad iyo aad baan idin salaamaya laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan nuur xasan nuur bukhaari iyo maama caasho runtii waxaan weydiin lahaa su-aal aad u kooban saan wada ogsoonnahay maamulkan Puntland wuxuu gaaray 25 sano waxaana muuqata runtii tabashooyin aad u fara badan dad waxaa jira aan u dabaaldegin 1 Agosto oo ahayd maalin weyn waxaan kaloo arkaynay wasiiro iyo xildhibaano ayaguna dowladda federaalka oo tabasho muujinaya maama caasho maadaama ay wax badan la socoto arrimahaas dowladdu seebay u maareynaysaa maxaase uga degsan su-aashaasaan weydiin lahaa waa mahadsantihin walaalow horta waxa waaye cabasho kasta in la xaliyo anigu aaminsanahay waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland oo 25 sano soo joogay oo muxuu usoo dulqaatay dhibaatooyin badan caqabado badan soo xaliyay in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo waxaan aaminsanahay inta qof reer Puntland ah uu cabasho qabo inaysan xaq ahayn in muxuu ahaay loo jawaabi waayo aniguna waxaan ka mid ahay waayeelka muxuu gobolkan waliba gobolka muxuu ahaay mudug baan ka tirsanahay oo muxuu goldogob ay ka mid tahay goldogob waxa weeyaan waxay ka mid tahay muxuu ahaayey maamulka Puntland dadka wax ka dhisay jabhadii SNDU la dhahabay ahayd haddana waxa weeyaan waa dad deegaanka oo dhan degan waqooyi bari oo dhan degan oo aan muxuu ahaayey aan ka imaanin gobollo kale iyo meelo kale oo fog aan ka imaanin marka shalana way ogaayeen muxuu ahaay wacyigii lagu dhisay Puntland maantana way og yihiin xaaladeeda sida ay tahay waxaan is leeyahay muxuu ahaay wax walba waa la xalin doonaa wax walba muxuu ahaay runta imaan doonto haddii dimuqraadiyad la sameeyo qofkasta xuquuqdiisa uu leeyahay heli doonaa Puntland waa la socdaana waxa way waxyaabo badan oo tabashaha jira oo dad badan wax ka tabanaya laakiin waxaan is leeyahay dulqaadkii aan 25 sano kusoo jirnaa loo baahan yahay dawladana waxaan mar walba ka rajeynaynaa waxa way dadka cabashadooda iyo inay dhageysato in ay muxuu ahaay wixii la xaliyo karana la xaliyo dadka aqoon-yahanka iyo dadka waxgaradka ah oo dhan inay maaragtay mar walba ay number 1 u ahaato Puntlandnimada iyo muxuu ahaayey waayihii dheeraayo la soo maray iyo baahida dadku qabaan ay u qabaan amni iyo muxuu ahaa walaalnimo iyo isku muxuu ahaayey duubnaan waa tahay ugu dambeyntii maama caasho geelle 25 sano ee soo socda haddii uu rabiraale ka noqdo maxay tiigsanaysaa Puntland walaalo anigu 25 sano ilaahay qofku gaarsiiyo anigu waxa weeyaan dadkiyagii xilligaas dawladda dhisay muxuu ahaayey 80% muxuu ahaayey maanta nalama joogaan oo way xijaabteen ilaahay ha u naxariisto aniguna dadkaasaan ka mid ahay
anugu keliya waxaan jeclahay muxuu ahaay intaan noolahay ilaah idankiis inaan arko puntland horumarsan khilaaf la-aan ah muxuu ahaayey mabaadi'dii loo dhisay oo ay ka mid ahaayeen in dadku qof iyo cod ay wax ku doortaan in qofkas xaqiisi helo in la helo in muxuu ahaayey soomaali muxuu ahaay oo dhan la walaal ah muxuu ahaay wixii khibrad ay dheertahay u gudbiya waxa aan muxuu ahaayey jeclaan lahaa in muxuu ahaay waxyaabaha cadaaladdu shaqayso waxaan jeclaan lahaa in muxuu ahaayey waxyaabaha laga soo gudbay oo ay ka mid ahaayeen eexda musuq maasuqa muxuu ahaayey qof jeclaysiga waxyaahaas oo dhan laga gudbo muxuu ahaay ay shaqayso rabitaanka shacabka iyo dadku waxa ay rabaan iyo cadaalad iyo horumar iyo walaalnimo iyo isku tanaasul muxuu ahaay iyadoo puntland sidaas ayaan jeclaan lahaa in ilaahay igu simo dee inta ka dambeysana waxaan jeclaan lahaa sanadba sanadka ka dambeeya in horumarku sii siyaado in isjacaylku sii siyaado in dadka muxuu aha aqoon-yahanka oo waxbartay oo jaamacadaha maalin walba kasoo baxaya ay noqdaan dadka hormuudka u ah wadanka dadkao dhanna waxaan jeclaan lahaa mar walba in muxuu ahaay saburku uu bato waxaan leenahay isimo soo jireen ah oo marjac u ah puntland oo wax kasta oo dhaca muxuu ahay xalinteeda kor muxuu ahaa iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay marka waxaan leeyahay dadku hala wada dabaaldego rubca qarniga waxa qofna ma laha shakhsi gaara ma laha reerana ma laha waa intii ilaahay na soo gaarsiiyey in aanu muxuu ahaay kusoo caana maalno marka dadka aan degdegina weli bishaan oo dhan waxaa la yidhahda bisha puntland baa la yidhaahdaa 2023 inkastoo maamulo kale oo iyaguna muxuu ahaay isla agost muxuu ahaay dhashay ayaguna dabaaldegi doonaan marka waxaan leeyahay walaalaha aan dabaaldegina dabaaldega puntland waa wada leenahay cid gaarahu ma laha berri adaa madaxweyne ka noqonaya adaa muxuu ahaa majority ka noqon kara adaa wax walba yeelan kara marka puntland waa mid puntlandna waxa weeyaan waa midaan wada leenahay yaan loo fiirin qof iyo siyaasadada taagan aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd marwa caasho geela diiriya oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka ka soo ciyaaray aas-aaskii dowlad goboleedka puntland sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay caasho geelle oo hadda ah xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala soo codsiinayay mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa uga digaya kalluumaysatada xili dadweynta ay ka jiraan dabaylaha mansuunka oo kiciya mawjado waaweyn oo qallibi kara doonyaha yaryar ee kalluumaysatada ay adeegsato warbixintan waxaa magaalada kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad digniintani ka soo baxday wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jubbaland ayaa waxay ka dambaysay kadib markii dabaylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha gobolka jubbada hoose iyadoona mas-uuliyiinta wasaaradda ay uga digeen dhammaanba in kalluumaysatada ay ka feejignaadaan xilliyada ay kalluumaysanayaan dabeelo xooggan oo ka jira xeebaha gobolka jubbada hoose awgeed waxaana mas-uuliyiinta ay uga digeen kalluumaysatada iyo sidoo kale kuwa badda ku safra in ay feejignaan dheeraada muujiyaan agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa sheegay in dadka kalluumaysatada ahi looga baahan yahay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan si ay uga badbaadaan dabaylaha xooggan ee ka jira xeebaha gobolka jubbada hoose oo la ogsoon yahay in sanadkii hore dad ka badan 10 qof ay ku nafwaayeen iyadoona sidoo kale doomihii ugu badnaa ay waxyeello soo gaareen waxaa lagu jiraa xilligii badxiraynka waxayna dhammaanaysaa sidaan rajeynayno hadduu alle idmo oktoobar oo sanadkan ah ilaa hadda waxyeelo weyn oo hadda ay keentay sanadkan ma jirto markii la barbar dhigo sanadihii hore oo ay ugu wacan tahay in ay sanadkan ay yaryihiin roobabkii laakiin hase yeeshee waxaa jirto wax soo saarkii kalluunka oo hoos u dhacay doomaha qaarkood oona aadi karin badda kuwa waxaa bixi kara motorada waaweyn saaran yahay markii wax soo saarkii kalluunka uu yaraadana waxaa dhacaysa in qiimihii uu kor u kaco laakiin ka wasaarad ahaan waxaan uga digaynaa bulshada kalluumaysatada ah ee badda isticmaasho iyo kuwa kale ee ku safro badda inay digtoonaadaan markay baxayaanna jawiga ay qiimeeyaan wasaaradda la soo xiriiraan
ayna qaataan hadday ka maarmi waayeen badda inay ama ka kalluumaystaan ama ay badda isticmaalaan in ay qaataan qalabka badbaadada kaasoo ka caawin kara haddii uu dhib imaado. ka wasaarad ahaan annaka waa ka wacyigelinay waanan u sheegnay qaybtan qusaysa ee kalluumaysatada ah. inkastoo dabaylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka jubbada hoose islamar ahaantaana aysan jirin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo soo gaaray dadka kalluumaystada iyo kuwa badda ku safraba ayaa haddana waxa ay saameyn xoogan dabaylahaasi ku yeesheen dadka kalluumaystada ahi ee ka ganacsada kalluunka, kuwaasi oo sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay dabaylahaasi suuqa kalluunka. mar aynu booqannay suuqa kalluunka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo ayaa waxaan kula kulannay qaar ka mida ganacsada kalluunka, kuwaasoo sheegay in sicirka kalluunka uu sare u kacay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Juulaay ee aynu ka soo gudubnay. waqtiga hadda lagu jiro waxaa la galay xagaay waqti la yiraahdo badii oo ah marka xiliyada la soo dhaafay xilli barwaaqo ahayd badfurna ahayd, haddana waxaan galnay xilli badxiran ah. xilligaasoo hadda lagu jiro xilliyadii mataqaanaayo xilligii baddii oo kuleelkeedii iyo mawjadihii ay bilaaban lahaayeen oo badxiranka uu bilaaban jiray bishii 7aad 6aad ay bilaaban jirtay adiga 7aad ilaa 8aad ilaa 9aad ilaa 10aad. waa xilliyada mataqaanaayo mataqaanaa badda oo badxiranka dabeelaha ay kacaan. aadan maxamed salaad, VOA, magaalada Kismaayo. mahadsanid aadan. weli dhegeystayaal waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaan